habeen anoo lugaynayo laami ayaan waxaan arkay gabar ilmeynayso aad u ooyeyso marka de qof aadan garanayn si aa u wareysata way adag tahay haddana waxaan isku dayay maadaama adigu waxaan isleeyahay gabadha 20 daqiiqo 30 daqiiqo oo kale waa isdaba soconay marka way aad bay ooyeysay way qaylinaysa laamina way ahayd meesho marka xoogaa waxaan isku dayay inaan wuxuun inanta weydiiyo walaal ma fiican tahay baan ku yiri marka iimay jawaabi kareen gabadhu aad bay ooyeysay laakiin ugu dambeyntii waxay sheegtay in ay la ooyeyso ciil oo inan dhigeeda ama gayaankeeda ugu geystay gabadha wiil bay xiriir wadaag ahaayeen jacayl buu ku abuuray wax kasta oo waxa dhex maray dad xiriir lama kii laga tago dad isqaba dhex mari lahaa iyagoo isqabin dabadeed gabadhii uur baa ku soo baxay markii uurku ku soo baxay ayuunbuu ku yiri kuma garanayo dhibka dhacay wuxuu ahaa marka gabadhii familkeediina waxay ugu yiraahdeen ilmahan de aad wadatid orodkeen qofkii uurkan ku yeelay gabadhu marka labada dhiboo isku darsamay waxa familkeediina uu soo cayriyay inankeena de kuma garanayo waa kan yiri marka cillay soo istaagtay gabadhii qisada markay iga sheekaysay cabaar ma sii wada soconay waan kala harnay waxa mar dambe soo gaartay xog ah inantiina isdishay marka waxaan sir wuxuun de waxaan intaan sii socdaa waxay u soo dhacay eray ahaa gabadhii cabaar markaan sheekaysana waxaan sirniyo qisadan ma waxaan ka sameeyay wuxuu xanuunkii igu sii weynaaday markii aan xog ku helay inantii isdisho marka qabrigayga soo booqo maansaleer aan ka sameeyay maansadu marka 3 qodob ay ka hadlaysaa qodobka koowaad wuxuu ahaa waano in ay horta markii ugu horeysa inankii ay la hadlayso leedahay de aniga maadaama aad cilayso walaalow gabar kale ha cilayn maadaama xanuunkan aniga igu dhacay inan kale xanuunkan ku sameeyay qodobka labaadna wuxuu ahaa inay la hadlayso inay sheegayso yani inankeeda maadaama iyadii inankeediiba ay ifkan ka tageen inankeedu wuxuu adduunka korkiisa uu ku mudnaa ay ka sheekeynaysaa qodobka saddexaadna wuxuu ahaa inay qabriga ugu sameynayso marka hore salaan qiimo iyo qaayalo maanku qaas kugu soo dhiibay gudoon oo ka qaba ruuxda marka xiga qiyaas ruuxa qiimihiisii aad tuurtay aad ka goysay qoyskiisii qaadirkii ku ceebaysay qodhiisii ka oysiisay aad ka qaaday sharafkiisii xitaa qiiro waahiile qun intaad u xaragootay ee tiri qarniga noolay dhaayaha kamaan qaadan qalanjadan waqay maarag qofka aad sidaa yeeshay eed u quuri kari weyday inuu nolosha qaabaysto ifka qurux ku noolaado xalku saw inuu quusto oo isqisaasi tago maaha gabarnimadu waa qaali qof walba ma uu haysto akuwaasi qadafkayga inaan qoomameeyaay weligaa qiraalkooda dadka qeexa samahaaga ha ku tuman qulubtooda burjigaaga yay qoonsan ha qatalin dignin weeye isqadarintu waa guusha laba ruux qulubtooda qowlka isku xira weeye ha yeeshee qofnimadeeda haddii qalanjo nuurkeeda quruxdiiyo ilwaadkeedu beerkaaga ay qaado sidadii qiyaamaysay ha qarsane xalaalayso inkastoo qisaas waajib ay ku tahay qof dhiig daadshay misna adiga qiilkaagu waa dabinkadii qoosh qaladkan ku fududaaday wiilkaygii aad qoontay magacu uga qaday koonka iilkan ugu qalayaay adiguna walaal qaali xafladda ka soo qayb gal qabrigayga soo booq qodobkan waxay ku sheegaysaa de markii ay iilka inanka ugu sameeyso waqlal baa lahaa markii dadkii kala soo qayb gali lahaa de iilka qof kasta iskama tagi karayee dadkii dhintay ayay ka sheekeynaysaa waxay leedahay qubura imaaniilka qareenaana soo fiirin quruuma inoo heesi qayrkeen ayaa jaasi qorayaal ayaa jooga wax ka qori dareenkeen taariikhda sii qaado qaabilaad waa maarso maalin xad qiyaastii ah taariikh 5 ku qoro buuga xitaa waxay u sii sheegtay taariikhda uu soo dhimanayay oo imaanaya xafladda xog bile waa warbaahin dhaxdhaxaad ah dadkuna ay wada leeyihiin